بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال مeel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni toddobaadlaha ee diinta iyo nolosha daawadayaal barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaanu kaga warrami doonaa qodob muhiim ah oo inta badan dhinaca dhalinyartu ay muddooyinka dambe aad u hadalhayaan kuna saabsan dadka isticmaala aqligooga marka ay doonayaan inay ka hadlaan arrimo ay diintu ka hadashay oo meel cad dhigtay ama marka luqada carabiga lagu sheego al-aqlaaniya dadka aqliga inta badan doonaya inay wax walba ku miisaamaan islaamku sidoo uga hadlay aqliga halku dhigay dadkaas taariikhdoodu maxay tahay aynu ka warrami doonaa hadii Ilaahay raahdo waxa barnaamijka xoog u soo akhriyay maqaalo kala duwan ka qoray aqoon-yahan Maxamuud Yuusuf Cabdi oo ah maamulaha guud ee hotelka Ambassador marka koobaad iyo ogolaada inaan ku soo dhaweeyo aqoon-yahan Maxamuud ku soo dhaw barnaamijka عبد الله aad baad mahadsantahay barnaamijkaagan qaaliga ee diinta nolosha inaan marti kugu noqdo aad baad mahadsantahay Maxamuud daawadayaal Maxamuud wuxuu qoray maqaalo kala duwan oo inta badan ku soo baxay wargeyska al-qarn ama wargeyska geeska ee luqada carabiga al-qarn wargeyska maandeeq ama dawan la yiraahdo qaybtiisa af carabiga ayuu maqaalo joogta ku qoraa barnaamijkeenan aqlaaniyadana waxa uu ka qoray maqaal sidoo kale Maxamuud maqaalada uu qoray waxa lagu baahiyay website-ka al-shaahid ee af carabiga ku baxa sidoo kale Maxamuud wuxuu khudbadaha jimcaha ka akhriyaa masaajidda kala duwan oo ku yahay Jaamicul Musalla oo ku yaala xaafadda Masalla iyo masaajidka Jaamicul Iimaan ee ku yaala xaafadda October mar labaad baan Maxamuud ku soo dhaweynayaa barnaamijka Maxamuudaan hadaynu aqlaaniyada ku sheegno af Soomaali horta markood maxay noqonaysaa Abdullahi aad baad mahadsantahay al-aqlaaniya waa kelmad af carabiga afka qalaadna wax lagu yiraahaa rationalism baa lagu yiraahaa waxa weeye qofku inuu aqliga ictimaado oo arinkiisu noqdo itus oo taabsi aqlaaniyadu waa runtii waa cudur bulshada Soomaaliyeed ku cusub gaar ahaan dhalinyarta waa cudur qadiima taariikh ahaan laakiin naga Soomaali ahaan ayuu cusub yahay waliba waxa uu aad u saameeyay dhalinyarta intii aqoonta lahayd wadogtay bulshadeena inta aqoon leh baaba iska yarba hadana cudurkan wuxuu ku sii dhacay intii aqoonta lahayd waa cudur halis badan waayeelku iyo culimo awdiinku iyo dadka waaweynta badan cudurkan kama warhayaan laakiin waxa aad u hadal haya oo la socda dhalinyarta social media connected-ka ku ah ee sida joogta u adeegsada waxaan jeclaan lahaa inaan bal horta aan wax ka iraaho aqlaaniyadu saadii su'aashay waxay tahay aqlaaniyadu waa madhab i'timaada oo ku bees garaysan inuu qofku aqligiisa isticmaalo oo taa macnaheedu wuxuu noqonayaa wixii aqligaygu garto ee uu aqbalo ayuun baan ku noolaanayaa nolosheedana ku bees garaynaya si toos ah waxay ugu hor imanaysaa waxyigii samaawiga ahaa diinta islaamka kaliya ma aha bal dhammaan diinihii samaawiga ahaa ilaahay soo dejiyay oo dhan ayay si toos ah uga hor imanaysaa waxay ictimaadaysaa aqligu inuu yahay masterka iyo resource-ka iyo waxa loo cogsanayo qofku inuu wax aqbal ama diido miisaanka qofku uu saarayo wuxuu rumaynayo aqeedada islaamka wuxuu ku leeyahay si aan u rumeeyo waa in horta aqligaygu uu aqbalaa marka hadii qofka la yiraahdo Ilaahay rumeey wuxuu horta aqligaygu diiday mise moog aqligiisu miisaan uga dhigaya oo oranaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ogaado wax badan aan ka ogaado waxyaalo badan oo jaan baaritaan cusub la imanaya qofkii waxa kamida inta badan al-aqlaaniya fil islaam ragii islaamnimada ugu horeeyay aqlaaniyada ka hadla waxyaalahay ku halaagsanay waxa kamid ahaa waxay awileen nusuusta quraanka ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadeeyay ee rasuulkiisa fasiray ee culimadii mujtahidiinta ahayd ee islaamku ay cadeeyeen ayay ku halaagsameen tusaale ahaan oo kale aayada quraanka ah hadaynu tusaale u soo qaadano nabi Yunus alayhi salaam waxaynu ognahay inuu nibri laqay faltaqamahu alhut wa huwa mulim wa aayad quraan oo cadweey waxay leeyihiin liqitaankaas wax ka jira ma jire labada daanbu dhaxgalay bay ku leeyihiin ilaahayna quraankiisa wuxuu ku sheegay isagoo halista ku jira oo dhulumaad fanaada fi dhulumaad madowga badan ee dul saaran ee kii caloosha iyo kii badda iyo kii madowga waxa soo madow inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka dhaxqayliyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala halka ugu gargaaray waxyaalaha al-aqlaaniya ay aanka ku tahay waxa kamida waxay diidan waxyaalaha mucjizaadka la yiraahdo
diinta islaamku iyo diimaha dhammaan samaawiga mucjizaad bay leeyihin tusaale ahaan oo kale nebi muuse baddaa loo kala jeexay nebi ibraahim calayhi salaam dabkiiba ayaa lagu rido looga dhigay baraf looga dhigay loo qaboojiyey ushiisu nebi muuse dhigay calayhi salaam markaasay socotay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebigeennii waa la dheelmiyey habeen baa maka laga qaaday ruuxan wa jasadan isagoo isku dhammaystiran jirhkiisii iyo ruuxdiisiiba waa la qaaday samada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qaaday oo u geeyey waa diidan yihiin waxyaalahaasoo dhan madow bay gelinayaan sidoo kale waxay ku fidnoobeen oo halista ugu badan dhex maquurteen ay tahay waxyaalaha qaybiyaadka ah waxa weeye muslimiinta iyo muuminiintu waxaa ka mid a iimaankooda aliimaanu bilghayb inay rumeeyaan waxyaalaha maqan inay rumeeyaan wax kasta oo maqan oo ishu qabanayn way dhex maquurteen wayna diideen dib baynu ka sheegi doonaa waxyaalaha ay diideen marka caqlaaniyaddu waa cudurka noocaasa weeye bulshada dhalinyartana iminka aad buu ugu badan yahay diintii islaamkana si toosa ayuu uga hor imanaya marka waa cudur loo baahan yahay inaynu soo jeesano way maxamed caqliga in la adeegsado da islaamku sidoo uu arkaa iyo arinta xagga dambe inuu ka sheegi doonaa laakiin asal ahaan horta halku ka bilaabmay marka halku ka soo bilaabmay in dadku markaasi caqliga inta laga tago nusuusta iyo diimaha iyo waxaasoo dhan dhinac la iska dhigo inuu bini aadamku caqliga oo kaliya uu yiraahdo caqliga ay maamulaya halku ka soo bilaabmay taariikha waa su'aal aad u wanaagsan asal ahaan waxa bilaabay caqligaas diinta lagala hor imanayo nusuusta saxda sariixa lagaga hor imanayo waxay bilaabantay taariikh hore ancient Greek al-Yunan al-Qadim waxa weeye nimankii Greek ahaa ee aan diinba lahayn waxaan ka hadlaynaa before Christ about 400 sano ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam say sheegayaan niman noolaa oo macruuf ahaa Socrates iyo Aristotle niman noocaas ahaa oo aan diin iyo waxyi midnaba hayn ayaa bilaabay oo caqliga ictimaaday markaas nimankaasi waxay u arkayeen in ummadda ay caqligooda ku badbaadiyaan runtii dee waxyiina maba oolba lagu canaanto iyaga oo waqti ay diimu kala go'naayeen oo kale ku diimo maba haysan waxa la sheegay iminka Socrates oo kale in la daldalay waayo waxa la caabudayay dadku waxay caabudayeen asnaan bay caabudayeen dhagaxaan bay caabudayeen warka jooga buu yiri waxaan caqligu ina siin maayo buu dhagax in la caabudo nooc ma markaa wuu bahanuunayay iyaga ma garanaysa laakiin nusuustii waxyadii diimi kooriyo xasanu ayaanu aaminsanayn oo markaa aan bulshada ku noolaa jirin xaga kale waxa caqlaaniyadan mucaasirka iminka dhalinyarteennii saamaysay ee dhalinyarta soo gaadhay waxay si toosa ay dabada ugu haysaa Sartre nin la odhan jiray oo yuhuudi ahaa oo macruuf ahaa oo mabda'an caddeeyeyba wuxuu yidhi annagu yuhuud haddaan nahay saddex mabaadi oo muhiima ayaanu ku baaqaynaa mabda'a koobaad wuxuu yidhi waa in adduunyada la caabudo iyo dahabka iyo danaaniirta lacag waa hunguri waa in laga shaqeeyo waa qodobka koobaad qodobka labaad wuxuu waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu bashariyada qaawino rag iyo dumarba la qaawiyo imanka rag dumarba qaawin bay naqaanay ilaa raggu waxay xidhan yihiin imanka shortiya gaagaaban ayaa xaragadii gashay oo lagu xaragoonaya waa mabaadida ugu muhiimsan ee ninkaas sheegay mabda'a kalena wuxuu yidhi in aanu ka saarno meesha naska qur'aaniga ee sunniga ah waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankeennan aynu akhrisano nagu soo dejiyey in badan buu fadaxadeeyaa nimanka la yuhuudda reer bani israa'iil baad qur'aanka ka akhriyaysa waa yuhuud weeye ilaahay wuxuu si toosa u sheegay inay ashaddu cadaawa muslimiinta cadaawadda ugu daran ay u qabaan si ay mabda'a uga saaraan ayaa waxay keeneen caqlaaniyad odhanaysa qur'aankanba kuma qanacsanin naskii bay iska fogeynayaan maadaama qur-aanku meesha ka baxana nimankaas insaaniyaddii iyo sharaf iyo karaamo ayay doonayaan inay isu yeelaan oo ummadda ka mid noqdaan waayo waxa weeye yuhuuddu meel baa ilaahay subxaana wa tacaala dhigay marka hore waa sharfay waa karaameeyey waa kibreen xayawaan baa markii dambe iyo qiradaa laga dhigay daanyeero xataa mabaadida ay caqlaaniyiintu ku doodayn waxaa ka mid ah insaanku asalkiisu inuu ahaa daanyeer
marka waka sidaa weeye marka asal ahaan ancient Greek gaasay ka soo jeedaa waana midab ka mid ah midabadii in la caabudo aqliga oo muhiimad iyo miqdaar iyo meel una gaarsiisnayn aqliga la gaarsiiyo asalkeedu halkaas ku arooraya way yaa dabada ka riixay yaa wada yaa doonay inuu faafiyo oo adduunka ku faafiyo inkastoo tilmaantay mid kamid ah haddana ma institution ayaa dabada ka wada mise waxa weeye waa sida afkaar la iska aaminayo dadku si caadi ah iskaga aaminayaan inkastoo yuhuudda tilmaantay yuhuudda kamida yuhuud marka ayagu waaba yuhuudba laakiin waxa jira ururo badan oo la sameeyay oo ku baaqayay barnaamijka aqlaaniyadda oo ay ku bahoobeen dalal badan mufakiriin sheegtay oo ka soo jeeday dalal badan oo waxa weeye caalamul islaama Masar baa ugu badnayd dhulka islaamka marka la eegayo marka way ku bahoobeen laakiin imka ururka waan xasuustaa 2007 mid la aasaasay markii dambe haddana adigu bilayar kadib ayaa u khadka ka baxay oo dhaqaalihii iyo waxyaalaha wixii socodsiinayay fundraising-koodii baa hoos u dhacay laakiin afkaartii meesha kama bixin markii dambana iminka inaga haddaynu bulshada Soomaalinahay waxa iminka dabada ka riixaya dhalinyartii aynu aqoonta u diranay waliba Arabic culture thaqaafa al-Arabiya dadkii aqoonta arbeed lahaa ee nusuusta iyo quraanka fahmayay ayaa aad dabada uga riixaya oo waliba waxa aad imka ugu sii badan oo dadka Europe ku nool way jirtaa inaad aragto mid laakiin marka waxa aad u sii badan dhalinyartii caalamul Arabi aqoonta u doontay gaar ahaan dalka Suudaan oo kale Masar oo kale ayaad arkaysaa in afkaartaas aad ay ugu baaqayaan iyada oo xataa aan culimo awdiinkeenu u soo jeesan arinka iyo khatartu leeyahay marka qolooyinka qurbaha jooga ayaa imanka aad arinta ugu hawlan oo wax weeye bulshada sunta ku afuufaya way maxaynu oran karnaa yaa tusaale loo soo qaadan karaa oo fikirkaasi qaatay oo mesela Soomaalida yeenan hebel iyo hebel waxba oranin laakiin waxaan doonayaa bal inaad ka warbixiso caalamul islaami oo wasaat tilmaantay Masar iyo Suudaan oo kale yaa qaato afkaartaasi xoog u qoray oo bugaagtooda la ictimaada af Carabida imka maadaama dhinaca dadka Carabida dhigtay ay awoodda saareen fikirkan horta waxa hormuud ku noqday oo khadkaba kaga baxay nimanka la yiraahdo al-mu'tazilada la yiraahdo markii hore oo waxa weeye i'tisaal bay sameeyeen oo waxa weeye way fogaadeen gooniba u baxeen nimankaasi al-asr al-umawi casriga umawiyiinta la yiraahdo ee taariikhda islaamka aynu ku akhrinay ayay bilaabeen casrigii ku xigay Cabbaasiyiintana cirkaas gaareen oo afkaartoodu aad baa u horumartay nimankaasi aqliga ayay aad u ictimaadeen waxayna aqligii si toos ah uga hor keeneen nusuustii cadayd ee quraanku number 1 ka ahaa waxa kamid ah afkaarta kharbaanka ah ee ay ku faafiyeen ummadda ee culimada islaamka ka hor tagtay inuu quraanku makhluuq yahay afkaartii aad ka u liitay ayay kamid ahayd ay aaminsanaayeen ay aqligooda ka keeneen quraanku aanu hadalki ilaahay inuu ilaahay abuuray oo hadalkii ilaahay ahay khalqiga kale kamid yahay qolada mu'tasilada afkaartooda liidata waxa kamid ahaa waxay leeyihiin qofka haduu dambi kabiira ku dhaco waxa la dhigayaa meel jannada iyo naarta u dhaxaysa marka aakhiro la is xisaabinay adduunyada waxay leeyihiin gaal la noqon maayo muuminna noqon maayo muslim laakiin oo iska haanaya meel dhaxa ayuu yaalaabay leeyihiin waa afkaarta khaldanayd ee aqligoonda ku keeneen وعقلهم بقى الله استعماليا وحكمد هذا توحيد كوكله وحيد عن صورة القلب ما هني إلهي أرجنا سين إلهينا أبورتي مين يحمل كرنا قرآن كصريح هنا وحشيجة إلهي سبحانه وتعالى ما أنت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن إلهي سبحانه وتعالى أركينه أو رأي أهنشيسة يو أركتديسو أي نعمت ينعمونك وجوه وين يتشنده أي كمديهين نمان كاس ayaa runtii ugu aansanaa hatta الآن cid aynu si gaar ah u tilmaano oo waxa weeye muslimiinta hadii iyagana aynu raacinaba ninkii loo oran jiray Jamaal ad-Din al-Afghani
maxamed cabdo nimankaas oo ahaa iyagu nimankii isticmaarkii la dagaalamayay caalamul islaam iyo dhammaan qaaradda afrika ku soo duulay iyo ta Aasiya nimankaas iyaguna runtii cadcada oo iyaguna aqlaaniyada ay ku baraxtireenoo imanka al-afghani oo kale wax weeye quraanka wuxuu soo qaadan jiray inta fikirkiisa ku haboon موقفka uu ka hadlayo tafsiirka xataa wuxuu fasiri jiray marba ujeedadu ka leeyahay ayuu aayaadka quraanka u fasiri jiray maxamed cabduna isaguna dariiqiisa buu maray nimankaasna nimankii iyaguna ugu cadcada fikirka aqlaaniga ah laakiin sidan aanu sii xaq jirin xaq sidan uma sii xaq jirin oo wax weeye iminka meel fog sayno hadhowayno aad uga sii warrami doonaa bal halka iminka la islaam tusaale haddaan soo qaadano way islaamku caqliga halku dhigay waaye ileen islaamkii diinta islaamku caqligii may tahmiishan ama kamay dhigin wax aan la isticmaali karin oo bini aadamkii ilaahay quraanka waxa ku jirta miyeedaan fikireen miyeedaan dadka aragtida dheer loo quraanku la hadla marka iyaga laftoodii quraan halku islaamku dhigay caqliga bini aadamka horta taa hore waxaan raacin lahaa fikirkan aqlaaniga markaynu ka qolada Greega iyo mu'tasilada iyo ka nimaadno culimadu islaamku waxay sheegaan inuu si toos ah ugu xidhmayo barnaamijkii shaytaaniga ahaa oo waxa la sheegaa shaytaanku wuxuu ku fogaaday ee haligay aqli isbiday bay ahayd waayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu yiri nabi aadan u sujuud barnaamijkii falsafad buu galiyay aqli buu galiyo wuxuu yiri ana khayrun minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin aqlaaniyada uu soo saaray iyo aqligu adeegsaday wuxuu yiri naarta iyo dhooqada de naarta fadli badan oo umada wax u taraysa marka inta hore waxaan ku darayaa arinkan aqlaaniyadu xaqana shaydaan buu si toos ah ugu la xiriirayaaba oo shaydaan waxa la leeyahay aqligii uu adeegsaday yaraaye intii yareedu fahmayayo marka amrigi ilaahiga ahaa ayuu si toos ah ugu hor yimid waa aqligiisa ihtimaaday saas ayuu khadka kaga baxay isaguna aqliga islaamku wuu sharfay makaano muhiimana wuu dhigay waxaana muhiim ah inaynu fahanno aqliga saxan ee suuban ee caafimaadka qaba marnaba ka hor iman maayo naqliga iyo waxyiga samaawiga ee saxda ah habeen xalay taginay iska hor yimaadaan islaamku waxyaalaha uu ilaaliyo waxa kamid ah ad-daruuratul khams waxyaalaha asaasiga ah ee diinta islaamku u timi inay ilaaliso shan shay u timi diinta kamida waxa kamida aqliga diinta islaamku aqliga way ilaalisaa maxay ka ilaalinaysaa waxay ka ilaalinaysaa inxiraaf aqadi in aqeed ahaan u limo oo aqlaaniyadan iyo almaaniyadan iyo ilhaadka iyo waxyaalahaas inuu aqligu uu galo oo wax weeye fogaado iyo inuu akhlaaq ahaan u qarimo oo waxa weeye ama khamri ha cabo ama xashiishad habo oo akhlaaq ahaan u doorsamo wata koobaade islaamku awliwiidaas ayuu aqliga ku ilaalinayo waa talabaad islaamku wuxuu ku baaqaa in maskaxdan la adeegsado oo maskaxdan laga shaqaysiiyo in qofku fakaro uu tadabburo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka waxa uu ku sheegay kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaru aayaati quraankan ba waxa loo soo dejiyay ujeedada ugu muhiimka ah ee loo soo dejiyay waxa weeye in lagu tadabburo oo loo fiirsado oo mucjisnimadiisa la eego oo la fahmo inuu ahayn waxaan suncal bashar wax bashar uu abuurtay uu awlay inuu ahayn oo taa wuxuu baa lagu ogaan karaa qofku inuu aqliga isticmaalo oo si fog wax u dhigto marka ilaahay wuxuu yiri afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha war quraankan miyayna u fiirsanayn mise qalbiyadooda qufulan u fiirso waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayaadkan ku dhiiri gelinaya aqliga inuu bil aadamku isticmaalo oo aqliga la hawl geliyo markale ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu challenge gareeyay qolooyinka nusuusta quraaniga ku mashquulsan ee kuma qanacsanin ayaa waxa uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala sheegaya waxani inuu yahay kalaamkiisi oo mucjisa oo leefal bil aadan ka hadli karaba inuu quraanku taagnayn markaas wuxuu leeyahay falyatu بحديث مثله إن كانوا صادقين وورعد بالقرآن كان هدي وسواسينيغا غلاي بلميدا بالكينا عربا ليد عركينا
ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka soo gaadhsiiyey bal aayad keliya keena mar kale caqliga tashriica islaamka uu jidaynayo xataa caqligu ixtiraama ilaahay marka uu xataa qisaasta oo axkaamta ugu adag ee diinta islaamka ka mid ah wuxuu leeyahay walakum fi lqisaasi xayaa qisaasta qofka wax dila in la qisaaso oo la dilo nolol baa iniigu sugan macnihii caqligii baa la doonaya inuu fakero oo yidhaha siday nolol ugu sugan tahay markaa uu ogaado qofka gacan ku dhiglaa marka la dilo in ammaan la helayo waa faker waxaasoo dhan marka laysku soo biiriyo oo laysku soo ururiyo haddana iyada oo uu islaamku caqliga uu sidaa u diray oo xataa uu yidhi bal eega nafihiinna eega bal samaawaadkan awalam yatafakkaruu ilaahay siduu samaawaadka afalaa tubsiruun uu sidaa ilaaha u dhigay haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laa ikraaha fi ddiin haddana caqliga marnaba la muqoonin maayo oo haddii diintu islaamku ay caqliga muquuniso waxaa ka dhalanaya wax la yidhaha nifaaq oo kaba daranba gaalnimada saa daraaddeed iminka dhallinyarta ee hooyadii islaam ahayd ee aabbihii islaam ahaa ee awowgii islaamka ah ee maanta la soo taagan caqligaaga xoree faker isxoree war diinta islaamkaaba bashariyada xoraysay diintu halkay kugu gumaysanaysa waa su-aalaha loo baahan yahay in la isgumaysto diinta islaamka gumaysti maaha waxa weeye laa ikraaha fi ddiin ayaa maxay uu ilaahay subxaana wa tacaala sheegay mar kale diinta islaamka waxay ka soo horjeedaa altabiciya almutlaqa in bini'aadanku wax iska dabagalo oo waxa weeye waxa nimankii quraysh ilaahay ku caayay ee marka la yidhi war xaqa qaata waxay yidhaaheen bal qaaluu inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma oo waawiyaashii baanu ka soo gaadhin ayay yidhaaheen taa islaamku waa caayay marka iminka dhallinyartu islaamka waxay u sawirayaan iyo dadka muslimiinta ee mutadayiniinta ah dad iska hoggaansanoo jeeda war dadkana way qanceen oo islaamnimaday ku qanceen oo caqligooda shaqeeyey laakiin kiina kharbaana waa in saa ay dhallinyartu horta wax u fahmaan aqoonta iyo cilmiga iminka ay sheegayaan waxyaalaha dhallinyarta iskaga dhex darsan waxaa ka mid ah caqlaaniyadiibaa waxay la gashay in islaamku uu dambeeyo ayay u fahmeen oo islaamku jaahil yahay islaamku ma aha jaahil islaamku waa diinta aqoonta iyo macrifada laakiin muslimiintu waa barnaamij kale dadka islaamka matelaya iyagu waa halkooda waxa loo baahnaa maanta inay reer galbeedka ka horeeyaan laakiin iyaga halkaas dhigay laakiin islaamku ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa iyo diintiisa ku bilaabay iqra oo readingka iyo akhrisku waxa la isku waafaqsan yahay rukniga ugu muhiimsan waxbarashada inuu yahay mar labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala nuun walqalami wamaa yasturuun adaadii iyo qalamkii ayuu ku dhaartay isagoo soo jeedinaya ummadda muhiimadda ay aqoontu leedahay mar kale wuxuu fadilay dadka aqoonta leh buu fadilay saa daraaddeed dadka aqoonta leh hadday ummadda ka xumaadaan dee meesha ku socotaaba dee iminka inuu halis baynu ku jirnaaba waxaa kaloo jira oo iyadana aan loo baahnayn caqliga in laga hor keeno waxyaalaha haybiga iminka taas waan maxamuud xagga dambe taa kaa weydiin doonaa laakiin inaga Soomaali ahaan wadiga la dadkii aqoonta la biday ama scholarship-yada helay ama dalka intay ka tageen waxbay soo baranayaan baa la soo noqday ilaahay ma ka wada hadalla marka miyuu jira oo inaka dadkeena Soomaalida ama dhulka Soomaalida dadkaas meesha ku soo noqdeen bay joogaan mise fikirkaasi waa fikir dadka ku yar dhalinyarta oo aan xooganayn waayo wax laga yaabaa dad badan inay daawanayaan inay laba yaabaan waxaad ka warramaysaa yiraahdaan halku ka soo ururiyo dadka halku ku soo arkay hawshani markaasi horta barnaamijkan waxyaalaha inuu qabana wax ka muhiima khatarta arrinkan uu leeyahay inay bulshadu ku baraarugsanato oo gaar ahaan waalidku ku baraarugsanaado dadkani waxa weeye dalka imika inala joogaan dhalinyaro wax soo bartay oo waxa weeye shahaadaad inoo soo qaatay oo cudurkan faafinaya ayaa iminka Hargeysa inagula nool waxa jira qaar iyagu dalka aan ku soo noqon oo markay waalidkood ogaadeen iyagu fogaaday oo tahriibay oo Yurub gaaray qaar waxa jira wali wax baranaya waxa u badan yihiin dhalinyartii iminka wax akhriska bilaabay ee indhaha kala qaaday ayuunba waxay ku kala qaadeen indhihii xadaaradaha Greeka ee aynaan maqalba iyo falaasifada waxa weeye badankoodu ay madheen aan waxba ka noolayn ayuunba indhaha ku kala qaadeen kadibna diintoodii ayuunbay kula soo noqdeen
waxa weeye maanta inanka aynu aqoonta u daranay waxa weeye tiknoolajiyada inuu nagala hadlaynu u baahnayn warshado inuu nagala hadlaynu u baahnayn horumar inuu naga hadlaynu u baahnayn maanta inuu nagala hadlo janno ma jirtaa iyo jannada kadib xagee loo socdaaya iyo ilaahay muxuu inuu cadaabaya miyuuna isaguna abuuran dee wax loo fadhiyo may ahayn ilaahay subxaana watacaala isagaa ina abuurtay jidkiibuu inoo saxay waa ina hanuuniyey waynu kala doorannay markaad doorato dee waa lagu cadaabaya saa daraaddeed iminka dhallinyartaasi aad bay u badan yihiin dalkana waa ku soo noqday weli marka ma meelay wax ku qoraan mise maqaalay qoraan miyaa meelahan social media Facebook iyo Twitter iyo meelaha wax ku qoraan sidii see loo garan karaa afkaartooda qof halka iska taagan ama ma meelay lecture ku qabteen iyo muxaadaraad dadku iskugu yimaadeen see loo qiimeeyay dadka aad wanaagsan horta waxa la yiraahdaa baadilka inta badan waxa adag baa la yiri inaad ummad muslimiin isla soo hor istaagto nimankaasi levelka may gaarin intay masaajida inoogu yimaadaan iyo bulshada islaamka ay Hargeysa iyo waxa weeye goobaha dadku ku kulmaan wali may soo gaarin laakiin meelaha ay imanka kootada ku xidheen waxa kamid ah Facebook oo kale Twitter oo kale adigu social media oo dhan way haystaan marka ma ku jiraan dadkan inta badan yiraahdaan bari dhowd waxaan Facebook-ida ku arkinay ragga qaar yiri quraanka kala dhimanayo xadiiskaasi wax kaasi ma jiro iyo xadiista ka hadlay Abi Hurayra wuxuu xadiista u urursan jiray uu ku dawarsanayay iyo waxyaalo noocaas ay dadka qaar Soomaali rag qori baa jira marka ma oran karnaa dadka noocaas afkaartana sheegayso in aqliga uu shaqeeyo naska laga tago ها وسؤال أدو وناكسن سؤال شاء عبد الله الويديسي dhalinyartani waxyaalaha aad ka ugu soo horjeestaan waxa kamid ah quraanka way ka yara xishoodaan oo inta badan aad uma hujuumaan inkasta oo rag badan oo quraanka u bareeray ay jiraan laakiin waxay waswaaska geliyaan sunnaha nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo tashkiik iyo ka shakisiin iyo waswaasin ay halka ka bilaabayno aqligu wuxuu la maray inay yiraahaan waa horta asxaabtan soo raraysa iyo inaga huba asxaabtan rasuulka kaleeyhi salaatu inooga soo hortay diinta waa soo warantay inay ahaayeen niman wada saxan oo afkaartoodii ay inoogu darin yaa inaga huba watagu halista badan waxa weeye ummadda islaamka culimo badan ayaa cilmi dhanba u sameeyeen barnaamijkan iminka dhalinyartu ay ku hamabartay xadiista see loo kala guray oo loo kala hufay علمي لا يرى مصطلح الحديث ك الجرح والتعديل وحوي علماء ووينه الإسلام كأي إسكوها وشيء مركزي كلا صافيين مركزا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مراتب إلى الصح كتاب بعد كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحنو اعتمادنا صحيح البخاري صحيح المسلم سننكي magaranaysa marka runtii way jirtaa oo waxa weeye meelaha ay ku galgashaan axaadiistay marba laakiin way ku soo socdaa quraanka hadii way ku horeeyay marka la eego ragga waaweyn imika de qaar kamid ah tilmaantay iyagu bugaagtooda waxa ku qoran inay quraanka ka hadleen soo saasma marka iyaguna laftooda u soo gurguuranayaan xagga aqoonta un bay waxaynu sheegi doonaa bal quraanka tooska meelaha uga bareereen baynu sheegi way maxay shaki galiyeen waxyaalaha ay shaki gelinayaan waxa kamid ah waxa la yiraahdaa al-ghayb waxyaalaha maqan ee ghaybiyaadka ah tusaale ahaan oo kale yaajuuj wa maajuuj diinta islaamka ayaa sheegtay waa bashar nool basharka marka la soo daayo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay inna yaajuuj wa maajuuj mufsiduna fil ard waxa weeye waxa ka cabanayay qoomkii bayna saddex laga helay dalqarnayn u tagay ayaa dalqarnayn ba uga cawdeeno ninka ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodaha gaar ka siiyay ee muxsinka ah ee sanfalaaba uga cawdeeno waxay yiraahdeen qolo imtixaanan oo halisa oo dhulka baabiinayo fasahaadinaya ayaa halkan naga soo gaaray nagaga xid sadkii marka yaajuuj wa maajuuj waxay leeyihiin maba jiraan bay leeyihiin waayo adduunkii globalization baa ka dhacay adduunku waa tuulo aqmaar waxa jira sinaaciya jirta satellite la isticmaalaya maxaynu arki weynay bay leeyihiin hadii jira halkii ku oodin biiraadeen ila nin adduunka jooga la yiri wuxuu u dhigay taada
halkii ku jira bilay waynu ka jawaabi waxa kale raacinayaan masiixu dajaal isagana maxaa loo arki waayay oo isagana ay nusuus sariix sheegtay oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam ka sugnaatay inamadu waxa kale oo ay beeninayaan oo ay ka hadlayaan waxay leeyihiin nabi ciise kaleey salaam abuuritaankiisa kale ka hadlaan waxay leeyihiin maadaama uu bila aaba aha waa in la garayno bila aaba aha hooya laga abuuray mar hadii hooya laga abuuray salka uu sal dhadiga aha muxuu dhadigu noqon waayay waxay diidayeen mucjizaadkan rabbaaniga ah ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala kun fayakuna ay si toos uga hor imanayaan waa quraanka bay kamid tahay waxay diidayihiin qolagii asxaabul kahf la oran jiray oo suuradan ka warantay iyo mucjizada kale waa khuraafaad bila aadamta ma wajhi fikraba oo xataa noloshooda cajiibka ahayd iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala marba suu rogayay iyo marba qoraxda halkay ka qabanaysay iyo inayna arinkani diinta islaamka cajab weyn ku ahayn oo lala yaabo oo mucjizaadka iyo awoodaha ilaahay wax lala yaabo ayna ahayn oo quraanku sheegay sardiyay ayay ka hadlayaan waxay badaha ay galaan waxa kamid ah oo baryahan culimada islaamka culimada Facebook iyo social media ku xanaay ay aad uga hadlayso waxa kamid ah waxay leeyihiin al-ismatu qabla an-nubuwah ambiyadu nubuwada ka hor iyo intaan ilaahay dirin macsuumiin ma yahayn bay ku leeyihiin oo nabi ibraahim oo kale soo qaadanay waxay ku leeyihiin markanuu nabi ibraahim qoomkiisa uu hanuuninayo leeyahay maxaad caabudaysaan qoraxdu markay soo baxdo oranaya ma qoraxda caabudaysaan wataa dhacday uu qancinayo xujada ku oogayo markaas ay leeyihiin nabi ibraahim uu la caabudayay oo waxa weeye isma ma lahayn oo qolada gaalada وكو شيء حتى النبي محمد إنه مركز ده إسلام كقارة كله محدي ده إنه سودو كله أصنام تعاود شيء خمر عب شيء وكقار كم ده حتى هيكون قارن فيسبوك وحيالله كقارن بقى كم ده وحكالات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والمعراج كيسو كله كهلان وحيدا عن صورة قلمها إن النبي لقاضي أو مكاك دقاقي أو تجي بيت المقدس أو تجي إننا وحى الله سبحانه وتعالى القرآن كيسو كعدي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنه إلهي النبي سدلمي وحين هاي المعجزات كربانية نبي وحى إلهي سبحانه وتعالى عداد بدن باكلكم قريش وجو ولو قلبي قبوشيني يده هولان كله إسلام مركانا فكر كأه نبي قال ما دلمن ده هو قال دي بقى قار مركبة كضادين أبو بكر الصديق صديق لماذا هلكو كقاطي وكيلها أمر الدين محمد عليه الصلاة والسلام أو الشاقي وركاس واجرة تضوب بالقو قاضنية مركا وحيالا غيبك آد كودر أيك هالين آد بدو ما تنتهي محمود وقتي إنه نويس كده هايان مركا أرنتاس waxay u baahan tahay laga digtoonaado dhalinyartu ay ka dig laakiin waxa ku weydiiyay dadka aqoonta la macaa ku meermeeriyay inay quraanka nas iyo ilaahay ka hadlaan iyadoo de aqoonti kale aqliga loo baahnaa in la horumariyo sana jeegsan kamarad la ikhtiraacay iyo in waxyaalo kale umada loo soo saaro halkii lagu mashquuli lahaa maxaa talo tan uu ku soo ururiyay ay diinta uu dadka uga shaqeynayaan waxa laga yaabaa Soomaaliya qofkan cilmi aaminsan inuu aqligiisa kaliya adeegsada inuu qof ay tii ku soo takhasusay wax kala soo bartay taas waa talo baahnaa dhalinyartan ay aqoonta u darnay waalidkood ku tabcay laga filayay laakiin sidaan horeba soo sheegay mashruuci yahuudiga ahaa ee ninkii yahuudiga inuu sheegaynay imanka oo sheegay ay meesha ku jira ummadii waxa hubka loogu soo dhiibayuu nusuustoodii iyo quraankoodii ku ababeen waxa laga yaabaa imanka inanka quraanka wax ka sheegayo hooyadii inay subax la kalihi jirtay oo malcamad quraanka waxa laga yaabaa bacadka intay soo fadhiisato ee caana ku soo bisa bacad ay kaga bixin jirtay si inankiisu quraanka u barto ujeedada koobaad waa mashruuc lagaga soo horjeedo diinta islaamka in lagu baabi'iyo oo dadka diinta laga aad baad ma tantahay Sheekh Maxamuud insha Allah barnaamijyo kale oo fara badan oo inuu ka qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo in fara badan dhalinyarta waxa in looga digo oo inaanay fikirka noocaas oo kale iyagu aanay ku fitnoobin aad baad ma tantahay daawadayaal inta waxaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena diinta iyo nolosha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe barnaamijkan iyo barnaamijyo lamid ah oo sanoo kale intaynu ku kulmi doono dhamaantii waxaan ku dhaafanaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.